وأنا كما حسنتهين داوشة برنامجك نمع عبد الكريم تمعدي أو برنامج كيلا دادهين سأيا إنو قبل أبيسا ورك عالمك كودا صفكه هركوشرة نمع waad mahadsantahay Mawlid maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararka caalamka kuwada ugu door corona gaar ahaan Pakistan halkaasi oo ugu yaraan 9 askari oo booliis ah lagu dilay weerar ay rag hubeysan ku qaadeen saldhig amni oo laga ilaaliyo goobta laga dhisayo biyo xireenka Mangi ee gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee wadanka Pakistan sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi maanta oo Talaada sarkaal ka tirsan maamulka deegaanka ayaa sheegay in weerarka uu sababay dhimashada 9 askari halka tiro kalena oo booliiska ka tirsan wali la leeyahay afayeen hadlay maamulka gobolka ayaa xaqiijiyay khasaaraha isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan saldhigga booliis oo kala duwan xana mas'uuliyiinta weerarka ay ku eedeeyeen kooxaha hubeysan oo xag jira iyagoo sheegay in ciidamada booliiska kuwa ilaalada xuduudaha iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ay bilaabeen howlgal wada jira oo lagu baadigoobayo dableedii ka dambeysay weerarkaasi gobolka Balochistan ayaa muddo dheer waxa uu wajahayaa kacdoon hubeysan iyadoo kooxaha fallaagadu ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan ciidamada dawladda mashaariicda maalgashiga shisheeye iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka hodanka ku ah macdanta kuna yaala xuduudaha Afghanistan iyo Iran weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli Pakistan ay sheegtay inay sare u kaceen weerarada ka dhacaya gobolada xuduudaha leh Afghanistan iyadoo Islamabadna ay ku eedeyso kooxaha hubeysan inay weerar ka soo abaabulaan gudaha Afghanistan dowladda Afghanistan ayaa si joogto ah ganafka ugu dhufata eedeymahaasi dhinaca kale kooxda loo yaqaan ciidanka xoreynta ee magaceeda loo soo gaabiyo BLA ayaa weli ka dagaalamaysa gobolka Balochistan iyadoo dalbanaysa madax banaani ama ismaamul ballaaran oo loo sameeyo shacabka Boolishka loo yaqaan ee ku dhaqan gobolkaasi waa tahay iminkana Iran gaar ahaan wararka xiisada colaadeed ee bariga dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxaysaa ilaa 2 markab oo kuwa ganacsi ah oo saacadihii la soo dhaafay lagu weeraray marinbiyoodka doodu ay ka taagan tahay Hormuz sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay shabakada wararka ee Axios ee Mareykanka laga leeyahay in ugu yaraan 2 gantaal lagu dhuftay maraakiibtaasi kuwaasi oo soo gaaray burbur xoogan inkastoo aan la sheegin wax dhimasho ama dhaawac ah oo ka dhashay maraakiibta weerarkaasi lagu qaaday dhankeeda warbaahinta dawladda Iran ee IRIB ayaa sheegtay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu isku dayay inuu maro wadada badda ee dhinaca Oman isagoo taageero ka helaya ciidamada badda ee Mareykanka isla markaasna uu iska indha tiray dignino hore oo Iran ay soo saartay dawladda Iran ayaa weli si rasmi ah arrinkan war u soo saarin isla markaasna xaqiijin ama beenin weerarkaasi wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid ah maraakiibta oo noociisu uu yahay kuwa shidaalka qaada gaar ahaan gaaska loo yaqaan LNG oo lagu magacaabo Al Rakayat laga leeyahay dalka Qatar kaas oo waxyeello weyn ay ka soo gaartay weerarka wararka Iran aynu ku sii soconay gaar ahaan kuwa ku saabsan munaasabadaha aaska hogaamiyaha sare ee dalkaasi malaayiin qof oo barooraya ayaa maanta isugu soo baxay masaajidka Shiicada u barakeysan ee Jamkaran ee magaalada Qom si ay uga qayb galaan salaada janaasada ee hogaamiyihii kacaanka Islaamiga Ayatollah Ali Khamenei iyo xubno ka tirsan qoyskiisa oo lagu dilay weeraro 28 Febraayo ee sanadkan ay Mareykanka iyo Israa'iil si wada jir uga geysteen dalka Iran salaada janaasada waxaa hogaaminaya caalimka weyn Ayatollah Abdullah Javadi Amoli iyadoona ay ka qayb galeen culimo mas'uuliyiin dawladeed saraakiil ciidan iyo dadweyne aad u tiro badan kadib salaada janaasada waxaa la qorsheeyay in meydka loo galbiyo xarunta u barakeysan Shiicada ee Hazrat Fatima Masume dadweyne aad u fara badan ayaa tan iyo galikii dambe ee shalay waxay ka kala yimaadeen gobolada kala duwan ee dalka Iran kuwaasi oo buux dhaafiyay barxadaha iyo hoolalka salaada ee masaajidka ka hor waa berigii saaka iyagoo ka qayb galayay
munaasabadda aaska meydka cali khamani ayaa kadib waxaa loo qaadi doonaa dalka ciraaq gaar ahaan magaalooyinka shiicada u barakaysan ee najaf iyo karbala ka hor intaana khamiista dib loogu soo celina dalka iiraan oo lagu aasi doono magaalada mashhad oo uu ku dhashay hogaamiyihii sare ee iiraan. war kale oo iiraan la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan Cabbaas Araghchi ayaa sheegay in wadahadallada lagu doonayo heshiiskaba dambaysa in lagu gaaro aysan bilaaban doonin haddii hanjabaadaha Mareykanka ka imaanaya ay noqdaan kuwa halkooda ka sii socda. waxa uu xusay in qodobka 13aad ee heshiiskiisa afgaradka ee u dhaxeeyay Iiraan iyo Mareykanka uu cadeynayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo ballanqaadyada dhinacyadu ay ku muujiyeen afgaradkaasi lagu heshiiyey. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Cabbaas Araghchi ayaa sidoo kale sheegay in malaayiin qof oo reer Iiraan ay isugu soo baxeen ka qaybgalka aaska hogaamiyihii sare ee dalkaasi Ayatollah Cali Khamenei. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayaa waxa uu ku adkeeyay in shacabka Iiraan iyo ciidamada qalabka sida aysan ka cabsan doonin waxaan jabaada. hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Washington heshiis ay la gaari doonto Iiraan ama ay dhammaystiri doonto waxa ugu yeeray howlgalkeeda. waa hagaag markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta. hagaag magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii qulqulayaan hogaamiyaasha wadamada NATO halkaasi oo shir maanta iyo berri ay ku yeelan doonaan. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa goordhoweyta ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. warar faahfaahsan oo shirka NATO ku aadan barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu faahfaahin doonaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa falanqayn ku aadan xaaladda bariga dhexe iyo xiisadaha cusub ee Hormuz ka soo cusboonaaday iyo sidoo kale waxaan ka marnay inaan ku faaqidi doonaa falanqaynta inoo soo socda ee hanjabaadda Iiraan ee ku aadan in heshiiskiisa afgaradka uu qatar ku jiro. balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. Mulid sida warkayga ku jirtayba wasiirka arrimaha dibadda Iiraan waxa ka soo yeeray war culus oo ku saabsan ee arrimaha quseeyay heshiiskiisa afgaradka iyo sida uu sii socon doono. waxaana uu ka dhawaajiyay inay ka bixi doonaan heshiiskaasi haddii Trump uusan noqon mid joojiya hanjabaadaha isla markaana hanjabaadaha ku saabsan in Iiraan la baabi'in doono ama hanjabaadaha kale ee Mareykanku u soo diraya Iiraan haddii uusan joojin. marka ma kula tahay Mawlid in madaxweynaha Mareykanka uu noqonayo mid u hoggaansamaya dalabka Iiraan ee ku aadan inuu joojiyo hanjabaadahaasi si heshiiskiisa afgaradka uu halkiisa ku sii socdo? nabcan laguma yaqaan horta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump nin hadalkiisa xad uu leeyahay sida ay sheegaan dadka aadka u dhaliila habdhaqankiisa waxay sheegaan in uu yahay xarig lamasataan oo si hadalka u dhigeen oo ay taasi ka turjumayso waxyaalaha lagu arkay. weliba marka sidaan oo kale hanjabaad ay tahay wuxuu jecel inuu ka dabaaqtabo. macnaha hadda waynu maqlaynaa Iiraan inay leedahay haddii uusan joojin arrinkaas wuxuu isku arki karaa waa sida ay sheegaan dadka dhaliilaya in amar la siinayo. marka waaba hubantiba inuu dabaaqtami doono arrintaasi oo uu soo hadli doono. iminka wuxuu joogaa magaalada Ankara wuxuuna hadda kulan la leeyahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadda intaynu barnaamijka wadnay ayaa waxa la sheegayaa in labadan ay kulmeen isla markaasna saxaafadda xitaa ay la hadleen waxaana ay ka wada hadlayaan xiriirka labada dhinac. shirkan NATO Turkiga uu martigelinayo inkastoo uu la fadhiyo ama uu la joogo maanta iyo berri madaxweynaha Turkiga oo yara iscelin doono laakiin haddana waxay u badan tahay inuu soo jawaabi doono. laakiin Iiraan si cad bay u sheegtay. Iiraaniyintuna waxa ay sheegaan inta badan way ka dhabeeyaan. marka inay yiraahdaan waan joojinayna wada xaajoodka waa suurtagal, inay yiraahdaan heshiiskeenoo ka bixi doonaa gebi ahaanba waa suurtagal. waayo maalinta Khamiista ah ayaa waxa la soo gabagabeynayaa aaska hogaamiyaha sare. marka jimcaha wixii ka dambeeya ama arrinta heshiiska la sii abaqaadi doonaa ama arrintu waxay noqon kartaa mid xaaladdu ay sii xumaato oo dagaal u dhici karo. walow laga yaabo kulankan hadda uu la leeyahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu wax ka bedeli karo mowqifyadiisa
laga yaabo inay u caaboon yihiin dagaal oo Netanyahu dhabarka uu ka riixayo sida hadalka loo dhigay marka waxaynu ka war sugaynaa waa waxa uu yiraahdo laakiin u muuqan mayso in madaxweynaha Mareykanka dibnihiisa xirmi doonaan waa gartay isla arrimaha Iiraan iyo bariga dhexe waxa taagan maanta war weyn oo ku saabsan in xiisada bariga dhexe gaar ahaan marinka Hormuz ay soo laba kacalaysay isla markaana Iiraan ay maraakiib weerartay horey sidan oo kale haddii ay Iiraan maraakiib weerarto uu ka falcelin jiray Mareykanka waxay tahay hadda sababta uu ka falcelin waayay hadda maxaa laga filan karaa oo kale horta arrinta cajiibka waxa weeye maraakiibtan saacada ka hor ayaa la weeraray ilaa hadda Mareykanku kama aysan hadlin way xaqiijiyeen oo kaliya oo sarkaal Mareykana ayaa Axios u xaqiijiyay weerarka Trump ilaa hadda kama uusan hadlin arrintan inkastoo safar uu ku soo jiray oo gordhawta uu ka soo degay magaalada Ankara laakiin diyaaradda gudaheeda saxaafadda kula hadla Trump oo waa diyaarad weyn wariyaal badan baa saaran xitaa marka arrintan ilaa hadda Mareykanku kama uusan hadlin waa arrinta la yaaban yahay waxa Mareykanku uu sameyn doono lama oga iyo go'aanka Trump uu qaadan doono waana sababta loo yiraahdaa waxa ka imaan kara lama saadaalin karo madaxweynaha Mareykanka laakiin horey waynu u aragnay laba jeer oo sidan kale Iiraan intay u weerartay maraakiib Mareykanku uu ka jawaabay Iiraanna gacmaha ma aysan laaban isla markiiba weerar bay qaaday waliba kii ugu dambeeyay ilaa iyo 8 weerar ay waxay ku qaaday 3 saldhig oo Mareykanku uu ku kala leeyahay Jordan iyo Bahrain iyo sidoo kale Kuwait waliba Bahrain iyo Kuwait ayaa jug culus loo geystay Mareykanku markaas go'aan buu qaatay wuxuu yiri muddo 7 ah ayaynu hakinaynaa weerarada Iiraan way la qaadatay inkastoo wali aaskii uu socdo oo Trump uu leeyahay 7 ayaan si Iiraaniyiinta inay ku dhameystiraan aaska hogaamiyahoodii sare laakiin markaad eegto jawiga kacsan iyo hadallada adag ee ka soo yeeraya malaayiinta Iiraaniyiinta ee dalbanaya argoosi ka dhana hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei dilka loo geystay arrimahaas oo marka waxay muujin karaan in xaaladdu ay tahay mid aad iyo aad u kulul wax kastana ay dhici karaan marka waxaynu ka war sugaynaa waxa weeye shirarkan jaraa'id hadda socda madaxweynaha Mareykanka waxa uu ka yiraahdo iyo tilaabada laga yaabo inay qaadaan ciidamada Mareykanka laakiin Iiraaniyiinta go'aankooda wuxuu yahay inaysan marin maraakiib iyaga aan ka amar qaadan marinka Hormuz wararka qaarkood waxay sheegayaan arrinta in la xiriirto miina baarista ama miina saarista waayo markabkan hadda maraakiibta la weeraray mid kamid ah wuxuu marayay qadka dhanka Cumaan buu marayay waliba xitaa biyaha Iiraan muusay mareen laakiin Iiraaniyiintu waxay leeyihiin marinkan Hormuz oo dhan heshiiskii 14 qodob ee Mareykanka in la gaarnay wuxuu dhigayaa in isla markiiba Iiraan laga tasho wax kasta oo la sameeyo markaan dadka u sharaxno diilintan dhibcaha ah xagga sare waa Iiraan ilaa iyo meesha ay ka soo laabanayso ilaa iyo xaggan hoose oo ay iskaga darsamayaan marinka Hormuz iyo badda Carabta qaybtan hoosena waa Imaaraadka ilaa xagga sare oo Cumaan la gelayo kadibna goolada wixii ka hooseeya oo hoos soo aadaya waxa la gali doonaa badda Imaaraadka kadibna waxa loo sii gudbi doonaa badda Cumaan marka Iiraaniyiintu waxay leeyihiin cid mari karta ma jirto labadan wadaba hadda anagana la kala tashan arrinta marka waxa dhici karta inay keento dhibaato aad u culus oo arrinta xitaa Mareykanka ay ku imaan waayo arrintan Hormuz xitaa shirkan hadda maanta ka furmaya magaalada Ankara waxyaabaha sida weyn diiradda lagu saari doono waxa kamid ah arrinta Hormuz hadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadlaya wuxuuna sheegayaa inuu dhaliilayo hogaamiyaasha wadamada NATO ayuu si adag u dhaliilaya oo waxa uu leeyahay nugumaysan taageerin dagaalka Iiraan hadalkiisana runtii marka si fiican loo qiimeeyo hadallo kulkul ayuu jeedinayaa isaga iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda shir jaraa'id wada qabanaya marka xaaladdu waxay u muuqan kartaa mid adkaanaysa isla markaasna laga sugaya Trump waxa arrintan uu ka yiraahdo iyo sida uga jawaabi doono Iiraan iyo talaabooyinka hadda ay wado wuxuu kaloo hadda ka hadlayaa madaxweynaha Mareykanka in 32 wadan oo NATO ah aysan gacan ka siin inaba haba yaraatee wadamada kale dabcan Mareykanka ku jira 32
inaysan gacan ka siin dagaalka Iiraan taa laftigeedu waxa moodaa marka inay tahay arrin uu ku xoojinayo hadalkiisa sida wadamadan NATO oo loo baahnaa inay gacan siiyaan aysan gacan u siin marka haddii aynu isku dayno shirka jaraa'id inaynu daawadayaasha toosno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan labadoo shirka jaraa'id hadduu socda dabcan sida hadda la arkayo marka dabcan faahfaahin dheeraad ah ka soo bixi doonta wuxuu sheegayaa inuusan u imaanin NATO inuu markaasi wax ka baryo sida dalka uu dhigay runtii wejigiisana cara ayaa ka muuqata si adag ayuu u cabaareynayaa wadamada NATO Trump dhowr jeer ayaa waxa uu ku hanjabay inay ka bixi doonaan NATO Mareykanku marka hadda waanu arkaynaa shirka jaraa'id baa socda su'aalo ayaa la weydiinaya dabcan wuxuu ku soo koranaa barnaamijyadeena dambe ayaan daawadayaasha u faahfaahin doonaa waa hagaag aad baad u mahadsantahay Mawlid daawadayaashana ay mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka maanta oo si toos ah halkan si wada jira nimcada macadee Mawlid Xaaji Cabdi idinkaga soo tabanayeen si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnaynna nagu soo biira waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo